siyaasi Salaad Cali Jeelle oo xilal ka soo qabtay dowladihii hore ee dalka haddana ah gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa si kulul u dhaliilay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka qayb gashay cali masaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isagoona ku tilmaamay kuwa u adeegaya dowladda kale marka laga soo gudbo in ay iyagu ay yihiin kuwa dawladda shisheeye u shaqeeya oo markaas loo adeegsanayo shacabka ummadda Soomaaliyeed in lagu niyad jabiyo runtii markaan eegay waxay igala koobnaadeen amba ay ka kooban yihiin dhowr group oo ishuwan runtii kuwa waxaa la oran karaa amba la dhihi karaa waa kuwa xukunka horena ugu fashilmay oo dalka la yacay isla markaasna hadda inay xukunka ku soo naqdaan ku macagtoobay kuwana waxaa la oran karaa waa kuwa dalaaliina oo siyaasadda ugu jira inay lacag ka abuuraan oo mar walba jecel inay businesskii ay ku jiri jireen inta ka soo wareegaan siyaasadda ay business ka dhigtaan maamulka qaranka ummadda Soomaaliyeed loogu adeegi lahaa ayay lacag ka dhex sameynayaan shirkan jiraayad oo Muqdisho ku qabtay Salaad Cali Jeelle ayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlay khudbadii gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale uu ka jeediyay cali masaarka madaxweynaha Jubbaland iyo arrimaha badda Soomaaliya badda Soomaaliya kuwa murunka geliyay Kenya iyo annaga waligeen waa is tirisanahayn waligeen nagama dhicin murun badeed waa kuwa marka inay murun gasho badeena runtii suurta geliyay iyagoo dana khaasa halkaas ka raadinaya taasina waxay meesha soo gelisay runtii inay ummadda Soomaaliyeed ku xisaabtanto markii aan eegno Aadan Barre Ducaale sidii uu ula hadla iyo mahmaahdii uu halka ka yiri iyo sida ay u sabcinayeen tamir la'aantooda taas ayaa kaaga filan Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho